heestaa heeliyo ama se hoombaraba waxay soo baxday sanadkii 1980 bishii afraad maalintii ahayd 7 xamad baan waqtigaa weli joognay laakiin waxaa jirtay xabar iyadoo la joogaa waxa la tirinayay oo si qarsoodiya loo tirinayay oo marba inta lagu kalsoon yahay loo gudbinayay dabeedna maaragtay meel lagu qarinayay waxay ahayd waqtigii dhibaatadii ballaadhnayd ugu horeysay ee bareerka ahayd ay ku timi ummadda Soomaaliyeed waa waqtigii uu dawladda Soomaaliya ka dhisani ay gabagabaysay dadkii ku noolaa gobollada dhexe ee waddanka kadib markii afgembi la isku dayay uu dhicisoobay ayay u aanaysay afgembigaas qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed kadibna wixii ay hub haysay iyo ciidan waxay ku soo saartay ummadda iyada kadibna cagtaa la mariyay iyadoo aan waxba loo reebin dad iyo xoolo yar iyo weyn qaybi halkaasay ku saabsantay qaybta hore waxay tilmaamo ka bixinaysaa ninkan aynu sheegayno bal sifooyinkiisa waa dadkii iyo isagii oo wada hadlaya wada hadalkaasoo ku imanayay had iyo goor dadku waxbay tabanayaan waxbay doonayaan dareen baa haya laakiin si cad looma sheegi karo laakiin haddana waxba lama qarin jirin oo si sarbeeba oo daboolan oo dadban baa wax had iyo goor waxa la tabanayo loo sheegi jiray marka haddaynu tusaale u qaadano heestaa heliyo aynu ku furanno maaragtay fadhigeennan ama kulankeennan galabta waxaa laga soo dhigay isagii dadkii laba daayeer baa laga soo dhigay isagu waa ninkii bulshaduna waa ta dhadig weeyaan geed baana la hoos fadhiyaa dabeetana malaa uu yar gamcay markuu yar gamcay markaa maradii baa ka dhacday kadibna ceebihiisii iyo foolxumooyinkiisii oo dhan bay aragtay yani bulshadii ama ummaddii oo waqtigii ummaddu si fiican ugu baraarugtay ninkan tilmaamihiisa iyo sifooyinka uu yeelan karo iyo dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa marka bulshadii way aragtay isna wuu ogaaday in sir laga hayo ama xan laga hayo uu ka yara daba tego wuxuu yiri bal hubi intii aad hurday haddii gol daloolooyinkaaga ama ceebahaaga maaragtay ay wax ka muuqdeen bal in haddii ay ka dhigo maaragtay arrintaa bal ka hubi marka gabadh baynu ka dhignay shacabkii higlo weeye dulin badan waa maamulkiisii goobtaa la joogaa ee dulinka badan leh higlo weeye dulin badan waana hoga kaliileed hongoraha cadceedu ka hadhgalay qadhaabkii haylaa ka yara dhacay hurdana wuu iskaga jiray intuu soo hambaabiray habhaabtay maradii kuyo heliyey toos iga kor iyo hoos miyaan hoolis mooye hal turxaana leeyahay halacsiga sarbeebtaa iyadoonu hagar bixin wax ka sheeka haaruun ha ka yaabin bay tidhi huuhaadu digashiya habsabaale weeyaan waana layshunda og yahay iyadoon ku hawshoon wax ka sheega haaruun waxay hoos u sii tidhi intaasi waa intii ay sida bareerkaa ugu tidhi wax ceeba ma lihid laakiin maxaa hoos laysugu odhan jiray markaynu dadka dib ugu noqono waqtiyadaa waxay hoos u sii tidhi nin gumaysi habayoo isticmaar habeeyo la halmaalay baa tahay hamrashada xaqdhowrka iyo haasaawahoodana ninuu heellan baa tahay markay heedhiwaalaha hirwo kuu tuntumayaan hebed minowsan baa tahay halgan iyo wadaninimo inaad heerta mooye weligaa dab uma hurin halkana caynaankahay baa ka socota tanna waa tii hoose runta ahayd inaad heerta mooye weligaa dab uma hurin marka aad nin hanad iyo horu socod murmaysaan halaq laba aflaa tahay marka ay hufnaantiiyo qof hagaagsan joogtee hebel kale la magac dhigo in hinaasiyaa tahay garta hoga tuskeedana hinraac guracanoon waxba hubinin baa tahay midhka hooska tuurka a nin ragaa hilmaamee naxli huursan baa tahay hadashada oqoontiiyo hindisaha garaadkana hunga qaawan baa tahay hayntiiyo dhaqaalaha gacmo hoorsadaa tahay hooda iyo deeqdana horallaad ka joogtaa
dadnimada hoggeedana dibaddaad ka hurudaa hollashada dagaalkana hoota rogasho maad lihid hayal waad ka madhan tahay heemalna kaa dhimid abaartii hawaariyo hargacuna mar baa tahay marna haawiyaa tahay higil nuxurla' baa tahay hirri qodaxle baa tahay hawo beena baa tahay hadalkama dhergaa tahay nina maanta heesaha u hamuumayaa tahay hibo iyo nin madaxnimo u haliilayaa tahay nin waxaan la heli karin u haraadan baa tahay nin waxaanu hidin karin isku hawlayaa tahay haw kariya dhib baa tahay habaas iyo ufaa tahay humaag iyo riyaa tahay habeen yuururaa tahay mugdi hoganayaa tahay hafar iyo cidlaa tahay intaasoo halbaasoo ishareer socdaa tahay habaar biiray baa tahay afartaa heshiiskii huri waa ku magacow hakad iyo tilmaan saar hinji nabarka qalin yahow oo heleebka igu mudan waxba hawlo kala hadhin hoon bara libaaxley hoosaasa badanley weligaa humbaalee huga dhagarta laga tulay kolba midab ku hooshaar dadka hawdka wadayaal ismahurada kala gee haanhaan u kala sooc hilqadlaha isugu dhiib madhin holca iyo hanti qaranku leeyahay hayi rarata guurtoon waxalayn ku dabargoo haweenka iyo maatada hardafaha ku baabi'i hebel hebel u aane macolaad hagoogliyo hiirtaanyo reeb bay hawraartu kaa tahay halse waxaad ogaataa hiyigaaga gelisaa hadeer waa la joogaa hadhow waa la nool yahay adigay hadhuubkii hordhicii qurqurisay hubadiisu kuu taal afartaa heshiiskii huri waa ku magacow hakad iyo tilmaan saar hinji nabarka qaliyo oo heleebka igu mudan waxba hawla kala hadhin naaleeya habacsane yaa horseeda kaa dhigay hay baabad sidataa maadigaa hoggaansho ah gobannimo hawadin karaa hasha sahan u noqon karaa haaneedka qaban karaa higsan karaa asaaga qarannimo hitiqin karaa isku duubni hanan karaa dad saboola hagi karaa himilada xil furan karaa taariikh la hadhi karaa hal abuurka sharaf kale murtidooda heli karaa hoodaale noqon karaa maxaad boog horeetiya haydaar dawaysaa dadkii sawtan haadkiiyo haan raawe boobeen hal kalaan xusuustaye hogol yahay aduunbaa ku habsaday dushaydee miyaan anigu heegoy soo haabo kugu idhi waa rasaastii baaruudda huguntee ambatee habowdee habili'i sokeeyaha ku hawaawi duushee hadhka yeelatay yaad hugun madhan inaad tahay ka hadoodilaysaa hamta iyo digtaadii dhulka hogag la yaabliyo haaray ka jeexdo hanfariirka maydkaa hayn waayey luxudkoo haabiilgilgilashada hanqalkuu la boodo hambadii aboorkiiyo harag iyo laf keliya hurdadii ka toosoo hiyigayga waxa galay nimankaad ishayseen kala hoyatay guushee gaariyow hiraydiyo hayayda iyo qayladu mahareerahayga ah hooshaarka aarkiyo huntutuulka dhidarkiyo handashada waraabaha hangagaarka baqayaha raqda heelka taalee laga haagay ii sheeg hiyigayga waxa galay nimankaad ishayseen hadhadooda weeyo maba hadin shilkaagee hirka dhiigga muuqdaa mahal bowlahayga haybadiyo xishoodlaay waayeel habsooboo hangabsiga dhawaaqiyo higsanaya beeshoo hollashada culayskii hidin waayay socodkoo hindiwaas tallaabada hakinaya jaantiyo habla maydhax diirtiyo hibashada xanuunkiyo mahadhada ajarankiyo haydhaarta xanaftii umul fool hallowdoo abid iyo hurgumadii hoosteeda yaalliin qaryad weerka hooggiiyo hingeliya asay xidhan hadal barad gurguurto hawadiisu caaniyo hooya naaska joogtiyo habaqlaha aroorkiyo horashada ku jeediyo jidib iyo hangooliyo
habartana ma geydaa hawsariyo how gurxamayaa hodadaabada aad iyo halkaan kuugu talagalay hal xidhaale noqotee gallay iyo hadhuudh iyo ninka hala ku dhaafsaday hayntiisa kugu gaday hindisana ku talagalay inuu kugu hor joogsado hororkiiyo waraabaha hawada mac ka soo galo haybadiisa gobannimo ma inaad hediisa iyo hooggiisa joogtaa hadimada garoowiyo hanaq go-a nugaaleed halka aad tumaatiday waxaa kaga habboonaa dar kaloo i hawlee huqdaad reebtay weyna hibashiya ladh kululaa colka bari haraatiyey hubka mudug ku talax tegey allayla hubsiiniyo hakibuu u baahnaa adigaa halyeygiiyo hanadada ku dabar go-ay himiloy u baahnaa hebelow laguu sheeg ummadaad hankeediiyo hilbaheeda gadataa hiilka kaaga baahnay hawsariyo how gurxamayaa cad ku halalacdaaliyo habar wacashadaade ku hawiratay meeshaad haabhaabanaysee koruqaad hinaasaha dadka haydi weligaa hilimadana kala baro halkaasay ku dhammaatay heesii la odhan jiray